السلام عليكم aad baan u naxayaa maadaama culimadii waaweynayde TV-yada aan ka daawan jiray la dhaxgeeyay ee rugcadaaga ahayd cimriga igu simay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan dhaho garan maayo oo wayba iska kooban tahay wixii la dhihi lahaa culimadii iyo ma garanaysaay dadkii diinta inoo siday ee ina barahayay inaan ka daba hadlay aad bay igu adag tahay waxaan rabaa in yar inaan anigana ku darsado inkastoo page-kaygaba aan anagu xaggayga ka sii waday oo aan wacyigelinta ka sii waday waan ku darsanayaa waxaan idhi maanta qofkii wax awooda maanta dadkiisa abaartu hayso haraadkiyo oon ku laayay bakhaylka u quudhi waaya ilaahii siiyey maalka ayaa ku ilaashanaya intaad nooshahay adduunka ayuunbay kuu shaqayne markay ajashaa dhammaato qabriga lagu geeyo iilka intaad ifka joogtay maalka dadkii aad u quudhi weyday ayaa berritaba dhexlaaya waa lagaa dhex saarahayaa dukaankaagii oo camiran intaad sadaqada u dhiibtay ilaahay dartii u siisay bangiga aakhiriya kaydka ayaa kaa sii horeeya TD-ga iyo RBC-ga iyo wax allaala waxa ku jiro dhammaad ka baxaysa bangigii weynaa ee asalka ahaa wixii kugu jiray in baad u tagaysaa ayuunbaa kaa sii horeeya udgoona siduu u sheegay sallallahu calayhi wasallam axaadiidtana ku taalla adoo jeex timira haysta intaad cuni layd naftaada iskaga xijiyo cadaabta u sii ruuxii u baahan waa xadiid weeye ilaahay siduu ku sheegay aayaadkiisiiyo qur-aanka qof oon dili lahaa haraadka u dhiman lahaa gaajo haysaa abaal adigoon ka raadsan haddaad isu qaanta maanta anfaco iyo raashin siiso adoo nooleeyey uunka dhammaan ummaddii badbaadshay inay la mid tahay ma ogtay ruux haddaad badbaadiso noloshiisa waa adigoo dadkoo dhan badbaadiyay culimmadii baa joogta istaaga dhammaan istaaga walaal u istaaga maanta walaal ummadii badbaadsha ilaahay dartii u dhiiba qabriga iyo iilka eega ayaanta qiyaamo eega awoodda ilaahay eega bal eeg adimada dhaqaaqa bal eeg gacmihiiyo adeega bal eeg garashada ogaalka jidhkeenniya caafimaadka ilaahayna siiyey eega aqliga iyo xoogga eega ilaahay nagu manaystay dad baa caabuda asnaame waxaa sii dheer intaaba iimaanka ilaah adeeca islaamnimadiiyo wanaagga ilaahay nagu manaystay intaa hadal baan yar dhexgelinayaa inkastoo waqtigu yar yahay ka soo qaad adduunkan aan joogno wax walba waa lacag weeyaan transportationka waa lacag biyihii lacabahay lacag bay ku socdaan korontadii waa lacag wax walba waa lacag bal ka soo qaad adiga ilaahay ku sameeyay inta la eg ee caafimaadka qaba ee socda inta kale oo dhan hadii lagu daayo oo lacag la'aan lagaaga dhigo oo hadalka kaliya ah lagu charge gareeyo aad hadlayso codka hadii laga charge gareeyo lagu dhaho lacag baa kugu qormaysa hooyada waxa dhigi lahayd hooyo waan ku dhageysanay lacagta ay ugu qormaysay muxuu ahaa adigu hadal waan ku dhageysanaya madaxan ku ruuxayaay intaas oo dhan baa ilaahayna siiyay macnihi oo lacag la'aan ilaahay nagu manaystay oo haddana ilaahay baa iimaankii ina fahansiiyay dad islaam ah inaga dhigay macnihi inaan shukrinaa haboone walaal iska daa bakhaylka ilaahay dartii u dhiiba intan aamiin baad ii dhahaysaan allow u gargaar dadkaaga abaarta allow ka jooji allow u shub roobabkaagii allow malagii waraabka u amar adigaa awood leh rabbow ummaddaa ha raaday asqowdee oon ku laayay rabbow umulaha jal waayay ilmuhu sii dhaadhinaayo abaydinka gaajo ooyay ayaydiiyo odayga liita istaaguna uu dhibaayo anfaca iyo kibisna haysan adaa u arxami karaaya allow u gargaar dadkaaga abaarta allow ka jooji allow u shub roobabkaagii allow malagii waraabka u amar adigaa awood leh allow balliyada u buuxi adhiga iyo geela ooman duleedka lo'daa akuuda hayinkii iyo awr ka daalay aroorkuna uu dhibaayo adaa karayee gargaarka rabbow ugu deeqnaqaaga allow u gargaar dadkaaga
abaarta allow ka jooji allow u shub roobabkaagii allow malagii waraabka u amar adiga awood leh culimadaba say noo sheegeen waxaa la yidhi dadku markay ayagu is cafiyaan ee calooshoodu ay isu furan tahay oo waxba ayna caloosha isugu haynin xaaraanna ayna cunin caloosha xaaraan kaga jirin ilaahay baryadooda wuu aqbalaa culimadaa noo sheegtay marka dhammaanteen aan is wada cafino xoogaa waan isxamanaa waxaan dhahnaa culimadii way isdirdirtahay way yar kala maqan tahay oo masaajid bay u kala maqan tahay waa abshir way waa wada fadhiya ee wada socdo ee midaysan sheekhuna si uu sheegaya abaartii dadka mideen lahayd weeye insha allahu tacaala ilaahu intaa abaarta nagaga qabto wixii ducaa ayaga ma garanaysaa inoo ducayn doona aad baad u mahadsantihiin waxaan idinkula dardaarmayaa hal leys cafiyo nin kasta wuxuu hayaanayo salla bakhayle shaydaanku maskaxdu kaa qabsanaya wuxuu ku leeyahay haa 200 ha bixinin 100 bixi meel ba 100 lagaaga leeyahay hadhowna waad iska garamaraysaa 100 ma bixinaysa 2 sano lagu yeelanayaa 100 marka shaydaanka la tashinina maanta qalbigiina la tashada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب ما سنتين.